wararka laga helayo filla Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo wali ku dhagan yahay inay doorashada xildhibaanada aqalka hoose ka dhacdo laba magaalo maamul goboleed walba. Farmaajo ayaa gacanta ku hayay maamulka doorashada iyo midda amniga markii la saxiixay heshiiskii 17 Sebtembar, balse maanta waxba gacanta uguma jiraan. dad badan waxay sugayeen inuu ka tanaasuli doono fikirka laba deegaan doorasho oo uu walaayada saaran doono madaxda maamulada ee saaxiibadiis ah oo caasimadaha maamul goboleedyada lagu qaban doono doorashada. hase ahaatee Farmaajo wali wuxuu taagan yahay laba deegaan doorasho. waxaa la isweydiinayaa waxa ku riixaya arrintan. falanqeeyaasha siyaasaddu waxay doodan ku soo koobeen 4 qodob. 1. dib u dhac doorasho. madaxweyne Farmaajo waxaa lagu eedeynayaa inuu weli gadaal uga fadhiyo doorashada. waxaa laga ciideeyay 2 sano oo muddo kororsi ah, balse wuxuu hadda ku sii siqayaa inuu qaato 1 sano oo muddo kororsi ah oo ay bilooyin uga dhiman yihiin. inay doorashadu sii dahdo waxay u tahay inuu muujinayo xuduudda ah inuu qaatay muddo kororsigii qoriga loogu hor istaagay. wuxuu doonayaa inay mucaaradku badi quustaan oo ay dhigbax dhaqaale la kulmaan, siyaasad ahaanna sii kala tagaan. mar walba oo ay doorashadu dahdo wuxuu uga dhex jeedaa fursad muddo kororsi iyo mid hoos u sii dhigaysa itaalka mucaaradka. 2. fashilinta kaalinta ra'iisul wasaare Roble. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa la sheegayaa inuu rabo inuu dib u soo ceshado hogaamintiisii doorashada, taasoo laga qaaday bishii May ee sanadkan. waxaa la sheegay inuu aaminsan yahay inay culus tahay laba deegaan doorasho, si gaar ah inay Roble ku culus tahay. waxaa lagu eedeeyay inuu rabo in ku dhagnaantiisa laba deegaan doorasho inay keento in Roble gacanta ka taago hogaaminta doorashada oo uu mar kale halkaas fursad ka dhex helo. hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen waa xubinta ugu weyn ee hadda miiska siyaasadda ka difaaca aragtida laba deegaan doorasho. Axmed Qorqor ayaa sidoo kale si aan xoog badnayn u qaba laba deegaan doorasho, waxaase loo arkaa mid uu ku qancinayo saaxiibkiis Farmaajo oo hadda ku garabsiinaya inuu ka adkaado kooxda la baxday Ahlu Sunna. 3. qancinta beeshiisa. madaxweyne Farmaajo waxa uu muddo u dirirayay in magaalada Garbaharey la dhigo kuraas ka mid ah kuwa golaha shacabka. beeshiisa hoose ayaa sidaas u aragta daawo. wuxuu ku guuleystay inuu 16 kursi oo golaha shacabka ku qoro magaalada Garbaharey, taas oo ay reerkiisu si weyn u soo dhaweeyeen. inuu aqbalo in laba deegaan doorasho laga laabto waxay ka dhigan tahay inuu ku ballan furay reerkii. 4. xusuus qor. Farmaajo wuxuu wali raadinayaa inuu wax badan kaga duwanaado Xasan Sheekh Maxamuud oo uu xafiiska ka bedelay 8 Febraayo 2017. wuxuu Xasan Sheekh noqday madaxweynihii ugu horreeyay burburka kadib ee doorashada dhaafiya magaalada Muqdisho oo gaarsiiya xarumaha maamul goboleedyada. wuxuu kaloo sababay in erga wax doorato. Farmaajo isna waxa uu doonayaa in wax taas ka duwan loo diiwaan geliyo. wuxuu isku dayay Farmaajo inuu qabto doorasho qof iyo cod ah, laakiin uma suurtoobin. laba deegaan doorasho iyo 101 qof oo erga ah wuxuu u arkaa xusuus qor fiican iyo wax uu kaga duwanaan karo Xasan Sheekh Maxamuud. 4taas qodob ayay dadka xaaladda Soomaaliya faaqiida u arkaan inuu Farmaajo wali ugu dhagan yahay laba deegaan doorasho, balse waxaa dhinaca kala muuqata inay qodobadani si weyn dib ugu dhigi doonaan doorashada 2021. maxay kula taadiga